shaqadii baarlamaanka waa u yahay meel iska dhigay wuxuu u shaqeynaya madaxweynaha oo markaan u diiday jaha iyo jaho ayuu u shaqeynaya waa ogyahay biyaha ka shaqeynaya laba golo baarlamaanka aqalkiisana meel laga tuuray waa ogtihiin marka wuxuu u sameeyay allahu taala haddii asaga uu sameeyo nimankii horay dalka u dhacay oo dalka u cunay oo wasiirada ahaa inay maanta hor istaageen furitaankiisii ay noqdeen marka mooriyaan baarlamaanka kama shaqeynaa hooy mid ma jiro intood meeshiya ku sheegeen xildhibaanka Soomaaliyeed aga waxay yihiin soo qaatay lacag iyo soo qaatay waa may dalka waxaa laga rabaa
إن أمد الصومالية أركان إن الدستور كين اللي بربرنايو شرع درن وشقينايو إلا أركان الربا نيوكي هرب السيرة وأنا أغنها أو فرستمان محاها رجي كراستو ونياش في النظام نياش كراستو وهو ذكر وزير ذكاها إذا كان عتوه دعي وعود مالية ذكاها ووزير دولياش كاها وذلك دعي واي إني دعاني مرات ربان وأنا كدو إني ذلك لدعو هدانا يقولها الشعب وحنو تاجرنا تاجر أمد الصوماليات تاجر الشعب الصومالي تاجر الدولة دينا بركيسن وحنا قرب تاجرنا مدحوينياشة أنا كافر قلبيت قلبودك هيرشابيل iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaheena uu hogaaminayo iyo ra'iisul wasaaraha sharafta leh ayaan garab taaganahay sharci darro wadanka lagu hogaamin karo laguna shaqeyn karo in ummadan ay aragto dadka doortay wixii ka dhacay galmudug waa ogeydeen doorashadeedii diyaaradaha lagu keenay xildhibaan ku noqdaan tan sidii rabaan isbaa u dhintaan waxaan baryahay saxaafadda in hada إن كرشن ولا ديدي إن أمد دولك هذا لعبرت ولا ديدي أفرتي سنة ولا جرستي واحد دعاء عيدا كوارك تلعكتوا ذي قاتان دول دعاء لما أرك أفرتي سنة نبض بالغنولا أفرتي صوصعتنا إن شاء الله أمد الصومالية الشعب الصومالي عيدا كالصومالي وحال رين استاجان ودولك هذا قرب استاجان ميل والبيت جوجان وحين أجناي إن مشان يتبانكون يشانكون الدور كانوا يقصوا دعاء ولا شيء أساسيان يجمعنا يلايو مردم كوربشن صوماليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صحافة صومالي ما أنت مرخاتبة كأهيدين مرخاتبة كأهيدين حل دي ما أنت وحن مقلي جبارو واسو قدبنا لكن برلمان كما أنت كدعدي ماشي أي فريسان جرين نظامياشا برلمان كلا هاجي جري هبسميديسا إن ما أنت إسبار الله لقتي أو أي فريستان نمانكا أي كورنتي حلباندي يقول الرئيسي أي كرواجسي قاب كيهين يوجددود رونهانتي وحويان دكاس ودكي هاي وضوها مركي وسير روايين واشي دالك صوماليا شعبك صوماليا فوضو iyo dhibaato iyo burbur iyo dagaal sokeeye waa ka soo daaleen baarlamaanku waa sharciyadii dalka sharciga in la ilaaliyo ahayd sharci jabin ayaa la sameeyay dhan walba say u sharaxday ubaxtaaliin sharcigii doorashada waxaan ku saxnay heshiiskii doorashada dhuusamareeb waxaa lagu ansixiyay labada golo oo wada fadhiya gudoomiyaheena aqalka sare iyo يا برلمانك صحيح كقرن صحافة باتين وكبر قبتين ورقده صباحي أنتوا تنسل مدحينها السماء وأختين مركب فاضو إيو ماركت برلمانك إلا جوجي شق جوجي اللي هو سمايو أيام ما أنت دعدا إسبارو برلمانك إسبارو السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وحي لوران الهواء لا يري waxaan rabaa inaan laba kalmood ku darsado oo aan aad u adkeeyo saxaafadda maanta waa u jeedeen inaan golaha shaqada soo galin wax ciidana idinkana waxaan idin leeyahay ka run sheega waxa aragteen iyo waxa maqasheenba ka run sheega waxa weeye waa dad horumarka dalka diidan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee dhismay diidan waa dadkii u bartay dalka inay dhacaan waa dadkii u bartay dalka burtaan waa dadkii u bartay isbaarada oo wali isbaaradii wada waxaan leeyahay Soomaaliya waa shacabkow dadka ee kuraastiina ku fadhiya waxaan leeyahay han qaraarac lagu ma
iyo 10 qof u xidhmi maayo maanku insha Allah bismillaahi kariim waxaan leeyahay horaa loo soconaya isbaarana way dhammaatay la qabsada war la qabsada inta taqaaneen way dhaaftay halka ku ogeydeen waa laga gudbay toosa san leeyahay halka ku ogeydeen waa laga gudbay sheekadu inta taqaaneen way dhaaftay waxaan leeyahay indhihiina fura la qabsada hawshu siday u socoto salaamu calaykum bismillaah waxa aad looga xumaada maanta in qolii shacabka dhexdiisa ay niman dayaala oo dana shisheeye kala ee baarlamaankii ayagoo xidhan ah isku dayeen in xiraan doonka si nimankaas shuruucdii ku tuntan laga abaamaro loo mariyo xeerarkii baarlamaanka u yaalay muxuu ahaa lagu qaado xeer hoosaadka baarlamaanka u yaalo sidoo kale waxaan u sheegayaa xildhibaanada kale inay ku quus qaataan xeer hoosaadkaas baa dadka kala saaraya waa dad dawladnimada diidan waa dad imaaraad iyo dana shisheeye iyo ay kalkaalayaan nabadii diidan horumarkii diidan dawladnimada diidan dalkaas madaxweynaha iyo baarlamaanka waxay ku joogaan sharciyad ay saxiixeen labada gole iyo muxuu ahaayo madaxweynahan uu saxiixay bay ku joogaan haddii uusan sharci jirinna wax walba ay ansixiyeen sharci may noqdeen waa taa aragtaan wax walbo inay sharcigiisa ay ku socdaan ilaa iyo haddana ay shaqaynayaan hay-adihii dastuuriga ahaa ilaa hay-ad kastana hay-addii ay bedeli lahayd timaado dalkan kama tegayno kamana tegayaan madaxweynaha ma tegayo guddoonka ma tegayo intoo dhan ma tegayaan baarlamaankana baarlamaan jiruu ahaanayaa hadday nimanka maamul goboleedyada ah ee wanaagga wada haddii ay maamul goboleedyada maqan ay ku waafaqi waayaan waxaan ummadda Soomaaliyeed u rajeynayaa inay nagu waafaqaan wax allaale wixii baarlamaanka soo saaro ummadda Soomaaliyeed waxa kaliya ay ka dhursugayso ay sugayso waa baarlamaankaas insha Allah ta'ala haddii kulanka loo fadhiyo madaxweynaha muddo badan buu samray horumaridka uu qabtay waa la arkaa wax walba wanaag uu qabtay waa la arkaa inta dulqaadkiisa la egaya ummadda Soomaaliyeed uu sabray waa la arkaa waxa uu sheegay ummadda Soomaaliyeed tanaasulaad badan baa loo muujiyay labada maamul goboleed ee maqan xildhibaanada ay hadda soo direen waxa dhibaatadaas maanta geysanaya aragtaan ee golihii ummadda shacabka Soomaaliyeed ee doorteen soo xiraya waxa weeye labada xildhibaan iyo inta yar ee kooban ee 10 gaareen dadka aan 10 gaareen looma joojin doono xeroosaadka baa la marin doona insha Allah ta'ala inta ka dambeysay ku quus qaata saas baa idin sheegaya labada maamul goboleed ee meesha ka maqan haday dadka soo raaci waayaan waxa go'aan ka qaadan doona biidnillaahi kariim baarlamaanka labadiisa gole si guud iyo si gaarba waxa uu sheegaya ayagana inay dadka soo raacaan hadaysan soo raacin baarlamaankaas wuxuu awalba ansixiyay uu wixii dalka inuu aado qof cod midaan doorashada banna ayaga keenay ayagii baana ku heshiiyay gaar labada maamul goboleed ee hadda maqan waxa uu sheegaya isku dirka ee golaha ka wada hadaysan joojin ay shaqada ay wadaan aysan joojin in muxuu ahaay baarlamaanka uu go'aan ka qaadan doono dalkana ummadda shacabka Soomaaliyeed gacantooda lagu celin doono doorashada dalkana uu aadi doono qof iyo cod insha Allah ta'ala aad baa u mahadsantiin dhamaan meediyaana waxa ka codsanaya wixii meesha ka dhacay inay runta ka sheegaan
naagti ma dhaxsanan walaal sigma ana hadda goor